السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا داوان ايساي مير وليبا واجوكتان هالكني وويب سايت كعانكي aminartist.com aminartist.com وويب سايت خبير كوان نقشدين تصورada kartoonada ee hadba la socda xaaladda siyaasadeed ee adduunka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono munaasabadda maalinta 21 Oktoobar oo maanta ku beegan waxaanu dib u xusuusan doonaa muddo 41 sano ka hor sida kacaankii markaasi uu la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya daawadayaal intaan barnaamijka ku jirno waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhdii hogaamiyihii dowladda sare ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxaan idin rajaynaynaa waqti wanaagsan iyo daawasho wacan كوبي لباتنكي أكتوبر 1969 waxay ahayd maalintii dalka Soomaaliya ay la wareegeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliya taasi oo ka dambeysay kadib baarlamankii rayidka ahaa ee xilliga jiray oo muran iyo booq fara badan markaasi hareeyay taasi oo ku wajahan cidii loo dooran lahaa madaxweynihii badali lahaa Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo 15 Oktoobar 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood xilli halkaasi booqasho uu ku marayay habeenimo isniina oo aroornimadeedii Talaado ahayd oo ay ka hadleen Radio Muqdisho saraakiishii ciidanka ee dalka la wareegtay ayaa waxay sheegeen in dalka Afgambi ay ku qabsadeen magaalada Muqdishona lagu soo rogay bandow soconaya 4 galabnimo ilaa iyo habeenkii waxaana ciidamada awood loo siiyay inay baari karayaan goob waliba oo wax ku tuhmayaan haddaba aan wada dhageysano wariye BBC-da xilliga Muqdisho u joogay oo warbixin ka diraya kana hadlaya xaaladda magaalada Muqdisho waxaana isagoo report diraya uu yiri iyo diraysa ayaa la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya inqilaab ay dhigeen oo wararku ay sheegayaan inaysan ku daadan waxaana ay sameeyeen majliska inqilaab afgembigaasi wuxuu dhacay salaadii saacad waxaana ay ku afgambiyeen xukuumaddii Mr. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee ka samaysneyd xisbiga SYL waxaana 6 maalmood ka dambeysay dilkii madaxweynihii Soomaaliya President Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dilmada iminka loo hayo in ka mid ah ciidamada Malaysia reeriyowga magaalada Muqdisho wuxuu xigtay waray ku dhawaaqeen majliska inqilaabka cusub oo ay sheegeen in afgembiga ay u dhigeen si ay uga badbaadiyaan oo ay uga bixiyaan dalka Soomaaliya waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuqa iyo xumaan talisa jamaacadda u baraystay inay taliyaan banjo ayaa lagu soo rogay dalka inta u dhaxaysa 4 galabnimo iyo 10 subaxnimo waxa kale oo majliska inqilaabku ay ku dhawaaqeen inay u shaqayn doonaan sidii loo baabi'iyo dadweynaha waxaana la mamnuucay ruux wax ka badan inay jiraan ciidamada militariga ayaa ilaalinaya oo tuban sidadka magaalada Muqdisho waxaana amar loo siiyay inay baaraan guryaha iyo baabuurta xuduudda dekeyaasha diyaaradaha ee dalka Soomaaliya waa xiran yihiin majliska inqilaabkuna waxay sheegeen siyaasadii dibadda ee dalka Soomaaliya inayna isbedeleen kalfadhigii ugu horeeyay ee yeesheen saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu yagleelay golo sare isagoona loo idmaday inuu hormuud u noqdo sareeye gaas Jaale Maxamed Siyaad Barre
waxaanu daawadayaal isku dayi doonaa inaan idiin soo koobno taariikh nololeedkii Jaalle Maxamed Siyaad Barre. maxamed siyaad barre waxa uu dhashay 1919 wuxuuna ku dhashay magaalo lagu magacaabo Shilaabo. maxamed siyaad barre hooyadiis waxaa la oran jiray Shaqlan Warfaa. siyaad barre markii ugu horeysay waxa uu tababar ciidan ku qaatay magaalada Baladweyne. markii tababarka uu dhamaadayna waxaa loo soo bedelay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka. waxaa loo keenay si tababaro dheer iyo ciidamada uga sii qaato xeradii ciidamada ay ku taala degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. maxamed siyaad barre waxa uu ku biiray ciidamadii Ingiriiska waxaana dalacaadii ugu horeysay ahayd alifle ka helay sanadu markii 1941. maxamed siyaad barre oo saddex xariglaa waxaa loo qaaday dalka Talyaaniga sanadu markii 1952. 16 Oktoobar 1954 ayaa maxamed siyaad barre uu qaatay xidigtii ugu horeysay oo noqday sarkaal. 1960kiina waxaa la dhisay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay Allah u naxariistay generaalkii sida aadka loo jeclaa Generaal Daawud Cabdullaahi Xirsi. markii uu geeriyoodana sanadu markii ay 1965 waxaa bedelay oo jagadaasi qabtay Generaal Maxamed Siyaad Barre isagoona noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana xukunkaasi uu hayay muddo 21 sano ah waxaana ku geeriyooday dalkaasi Nigeria oo magangalyo ahaan u joogay ilaa iyo sanadkii 1995. 23 Oktoobar 1969 ayuu jeediyay maxamed siyaad barre khudbadiisii ugu horeysay waxaana uu soo hadal qaaday sababta xukunka ay uga tuureen dawladdii rayidka ahayd iyo hadafka ay hiigsanayaan haddii ay yihiin towradda dalka la wareegay. dowladda Soomaaliya waxaa si weyn loogu xasuustaa xanaaneyntii iyo barbaarintii caruurta agoonta iyo ubadkii kale iyagoo aanan haysan cid xanaaneysa iyo horumarkii dalka oo meel hoose dowladdaasi inta ay ka soo qaaday dusha sare geysay ana kacaanku guulo uu ka keenay waxyaabo fara badan oo dowladdii ka horeysay markaasi ay ku guul daraysatay waxaana ka mid ah ololihii barashada afka hooyo dhismihii hay'adaha dawliga ee dalka laga fuliyay barnaamijkii iskaa wax u qabso dhismihii isbitaalada dugsiyada waxbarashada ilaa iyo heerarka jaamacadeed oo lacag la'aan laga dhigay qof kasta oo shaqaale dawladeed waxaa lagu waajib yeelay inuu tababar u galo xerada tababarada ee xalane waxaana taasi ay keentay inay kororto tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar maxamed siyaad barre wax laga weydiiyay in talada ay dib ugu celinayaan maamulkii rayidka ahaa ayaa isagu waxa uu kaga jawaabay waxaan leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeralayda iyo dadka shaqooyinaha iyo askarta inay dad isku darayiin laba midab ayaan ka ahayn bay annaga nala tahay hasan yeeshe meesha Soomaaliya ama waajib ay u tahay inay ka fiirsataa ama annaguba hadda aan qabno in laga fiirsado inay tahay warninka ay mahawsha u dhiidanayaan من إخلاصها وسيتي عن موضوع شقينية حدنا موضوع شقينية ممكن ما يسمك فيها ممكن ما عمله موضوع شقينية سوالين خطرها هي وحورها مجحبها هي وبرمجة الصناعية هي وبرمجة الصناعية وقرابتين صناعية قد إدارة عمل كبد الصناعية سوالين ده على حضور السؤال يروكع أمته
كل شيء يدين أنا هل كان بيساعد في الموضوع مقطع مركا حكم في نوعا مثلنا عاي حبة يحيى يعني مثل حكم عسكري أنا هو يهدي أنا واي ورا عسكري عايش تبان اللي يجي الماني يتيجي كيحيى سيدك اللي يرى متعلمين تاع الرحية تاع وضلك شوي هو ما هي يعني هندرس وحلا يجي ممكن دواسنا ويا المثل جورنا كمان يسام أيها إرادة هذا بسقطان حلو كذا اللي يقول ترى waxaan samayn doonaa markii dadku uu hadda reer fiican buu ismarhayaa ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa marka talada ay dooranaya iyo doonaya كوثر بلادي ولادي تبصعنا ويسرا وين داري تكتير كوثر بلادي ولادي تبصعنا ويسرا مدوبة هو أهل سواتا وعقل دارجتي ولد يا مدوبة هو أهل سواتا daawadayaal heestaasi wadaniga ahayd waxay guniyo gunaanad u ahayd barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay munaasabada maalinta 21 Oktoobar oo maanta ku beegan sanaduna waa 2010 barnaamijka dhanka farsamada iyo tabintu dabcan waa aniga Cabduqaadir Cali Maxamed Cabduqaadir Qayska dhanka kameraduna waa Maxamed Salaad Xasan Cadde inta aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhammaan waa asxaabta barnaamijka oo idin leh sida ay nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh halkani waa website-ka caanka amin artist.com